mas'uuliyiin ka tirsan maamulka masaajidka xaramka ayaa xilka laga xayuubiyey. waxaa xilka qaadis lagu sameeyey qaar ka mid a mas'uuliyiinta masjidka xaramka iyo masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam kadib markii lagu eedeeyey xubnaha xilalka laga qaaday in si wanaagsan ay u gudan waayeen shaqooyinkii loo igmaday. maamulka guud ee arrimaha masjidka xaramka iyo masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam sheekh cabdulraxmaan bin cabdulcasiis assudays ayaa bayaan uu soo saaray xilka uga qaaday agaasimaha xarunta warbaahinta oo lagu eedeeyey waxqabad la-aan. sheekh al sudays ayaa sidoo kale xilka ka qaaday agaasimihii guud ee maamulka iyo kaaliyihiisa oo xilka laga qaaday, waxaana xilka qaadista mas-uuliyiintan ay timid xilli masjidka xaramka ay joogaan dad badan oo 1 milyan lagu qiyaasay oo sanadkan gudanaya waajibaadka xajka. boqortooyada Sacuudiga ayaa sanadkan u ogolaatay ilaa iyo 1 milyan oo muslimiin daafaha dunida iyo gudaha dalkaasi isaga imaanaya, kuwaasi oo markaasi gudanaya rugnigan muhiimka ah oo qof kasta oo islaam ah niyadda uu ku hayo maalin uun in uu guto.